السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي وإلهي المهدي دي أنا سكسو لابني مر لواد من صدحاد مر كلا أفر بدين وإلهي المهدي أصحابي بريها وان كلا مقنين ملئي حيسي أنا وعدين حيسي always وانا دين حيسي الحمد لله إله ما هذا إسكالي أصحابي أنت أنا برنامج كانوا بدقين هلا عدت أيام وتعدت يا سؤال دائما ما يشان بقصبته channel كان سبسكرايب لايك شير وحقاقة سو دويننا وحقيقة أصحابي ما أنتم بحان إذين وذاك السؤال ما أركتي وله محي قصة بحان كنت الماء ومقرناي قصة بحان إذين وذاك ما أنت قصة دبا أو كم عدي ربها أي نتشوفنا ودنك إنجليز كان عدي قصة ذاك ما قصة دبا وحي كل عدي قبل صوماليين dadka mid asxaabteeda ayaa ila soo wadaageen qisadaas dib waxa xasuusniga hadii aad haysaan wax kasooyin ah ee aad rabtaan in la soo baahiyo waa ila soo wadaagi kartaan ila soo xiriira comment iyo soo dhaafa qoraal iyo hataa soo sheegtaan qisadani waxay ku saabsan tahay laba gabdhood oo walaalo ahaa oo deganaa wadanka Ingiriiska ah horta qisad magaceedu waxa la yiraahdaa inta aan idin guda gelin qisada oo dhabtay inta idin guda gelin qisada waxa la yiraahdaa is ilaali mooyee dadkiiba aamin laga waa qisada maanta aan idin wadaagay waxa la yiraahdaa is ilaali mooyee dadkiiba aamin laga waa asxaabay qisadu waxay ku bilaabatay sida tan waxaa jirtay laba gabdhood oo walaalo ah oo isla dhashay oo degan ariga Ingiriiska reer Ingiriis waa idin salaamayaa maanta halkan aan idin salaamayaa gabdhahaas waxay ahaayeen gabdho walaalo ah oo isla dhashay oo isku aabi iyo isku hooyo ah bay ahaayeen gabdhahaas asxaabay waxay ahaayeen gabdho aad isku jecel oo ma aragtay isku kalsoon oo wax kasta wadaago dib iyo dheef wax walba bay wadaagi jireen gabdhahaasi gabdhaha mid ka mid ah qisadu ay ku dhacday baan idin sheegayaa waxay ahayd gabar Soomaaliyeed oo single mother ah oo caruur haysata waxay isbarteen nin isla carraga Ingiriiska jooga oo Soomaaliyeed bay isbarteen xiriir bay wadaageen adigu gabadha inkastoo gabar iska saaxiib ciyaal ay ahayd ilmo haysatay ninku wuxuu ka ballan qaaday inuu ma aragtay ciyaalkeeda iyada oo ma aragtay isku qaadanayo ballan qaad ah buu u sameeyay gabadhi iyo wiilkii markay xiriir kala haayeen ayaa waxaa gabadhi soo kala dhex gashay ciladaasoo ah dhanka caafimaadka gabadha caruurta leedoo single motherka ahayd ayaa caruurta mid ka mida buu ka xanuunsaday asxaabay qisada markay halkaa marayso gabadhii ay isbitaal iyo ka daba orod iyo ku jirto maxay ahayto cunugeeda la tacaalitaankiisii oo ninkaan meeshii uu garab ka siin lahaa iyada gabadhii caruurta ka xanuunsanayd buu wuxuu sameeyey maalin maalmaha ka mid ah bay waxay is arkeen gabadhii walaasheed asxaabay bal arrintaana qisadan anigu waa la yaabay waxa ay wallahi bini aadan iyo walaal iyo maxay ahayd saaxiib wax la aamino maba la yaqaan sanadahan dambe wallahi waa la yaabay anigu qisada markii la soo wadaagay maalin maalmaha ka mid ah bay waxay wadada ku kulmeen gabadhii walaasheed dumaashidiis تبي دماشي إنه دماشي النقطة قبل الربي بيودك كرمان نينكي إيه ورا في عندها والله ويبريها لهم أركي والله أسكن مشغول صناعي هاي إيه ورا أبايو وركم هي سمية رد بحاب هيدين ما عرفت إني اسمه سدام كل شيء صاحب وس كل وقت هيدين محاجر أرنتيني محاد دب كذا عليه نقول مايا إن وحواي أرنتاس أنا جوام بحي سفر بانجلي سوماليا عادي حتى صولابتي بالإيوان أباي سياتا أباي وفي عندها الماك حنوصن محي توسك مشكوش بريهان وكاسا وحبي شيكتي وكم رسمي ما يعني حتى أباي حنوصن بانجليو سوماليا عاديو هالكاسا انجليو محي وانا كلام مشغولة بل محي بلن بركاجي سي وقبدي كلام بلطي تي وحين كلا ما عندي كلا واحد أصحابي شكل مكان هالكاميرا شو تلفون على كلا قاعدي يعني دمشي أهان سيديجا واي إيو مركز سيد إيه قصد أصعته تلفوني كلا قاعدين كمحيته وايس حريرين قبل تن كلام مشغول بس كهاد الميل بكحنو السنة إسبتال يقلين إيو وحبي يكون بيسكو إيه نينكي أسجعها وحو حرير لسه مي قبل ولا شيء وقبل عرورت كحنو سنة معنا تي كلا يحرر لسه مي
iyana waa la samaysay xiriir halkiyaa dhag la sheekaystay ii waranaa aniga walaashaa waxa waaye maxay ahayto wax maaragta saa u sii weyn dad is yaqaano asxaaba u baan ahayn ma ahane aniga iyada wax weyn maba naga dhexeeyaan adiga ka waran haddii aad ma aragtay aan is magaciisa isana maxaa ka qabtaa inkaan qabtooy iyada wagta weji lama ahayne okay bay tiri haf iyo balo labadoodii dhiin waxaan ku leeyahay kaal iska arag jacayl romantic waxaan ku leeyahay flower xagga geed ba tii kale warba ma haysaba ileen waa qof ilma ka xanuunsan yihiin hoos bay u xiriiri jireen dhag finally waa la isguursaday nikaax dhag waxaan ku leeyahay kaal iska arag حبيبي يا حياة يا كدعضي هلا اسقورسدي قور اي ولا شيء اكتهي معهن ويل بان اصبرني ها غير لهاد من كذا دي هاي نحكو مرايا هاي محاجر ولا ويل بان اصبرني maxay ahayd magaalkaas uu degan yahay oo wadanka Ingiriiska meel kamid ah wiil reer Bristol isbaranayo maxay ahayd kaal iska argo waa ma aragtay waa isfaxnayo waxa laga yaabaa inaan isguursano bal la socodiga in kasoo mashquul tahay walaalay oo maxay ahayd ilmaha Allah ku caafiyo waaya walaalay guur qeyr qab Allah kaaga dhigo gabadhi walaashay ninki sidii way ku guursatay midani ma oga xiriirka lama socoto ninku inuu yahay ninka ay balanta wada lahaayeen warba kama haysaba aleedka alle waa maqan yahay telefoonka lambarka ka badashay lambar cusub samaystay warba kama ay hayso arrintu markii halka marayso asxaabay waa arrinta alla yaabay maalintii meherka ayaa labadoodii hal mar ileen meel goob aan isugu yimid meeshaan qasmiya markaan meherka bay gabadha timid lagu casuumay qisadu waa qisa yaab leh xanuunkeeda leh asxaabay maanta inta ka gudbiya qaybta koowaad kala soco qaybta labaad channelkan isaga ah asxaabay qisada maanta intaas ayaan ku ekeynayaa kala soco channelka qaybteeda labaad isla channelkan isaga ah halcodsi haddii aad ku cusub tahay channelka mar labaad subscribe like share wixii soo jeedinana waa xaggayga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.